wararka dacaayada ay sheegayaan leeyahay waa carareen hadda ma nacari dabla xagarey iyo ceel 100 kiiloomitir bay isu jiraan dadka deganina waa isla dadkii waa dad isle waxaan u turnay dadka shacabka ee magaalada degan in aan lagu dhex dagaalamin sidii Boosaaso ka dhacday Garowana ka dhacday dagaalkii uu koogay hogaamiyadii la daraadi la shalay waad arkayseen cayayaanka bulshada ee hogaamiyadii u shaqeeya iyo cayayaanka bulshada ee hogaamiye cirra u shaqeeya intuba arintan isku sibay uga hadlayeen oo shirweynaha ummadana leedahay waxaan baarinayeen hogaamiye cirro iyo maamulkiisa waxba uma yaalaan halkan hogaamiyadani iyo siyaasadiisa guracana halkan waxba uma yaalaan waxaan ka xumahay dhacdadii ka dhacday foosh xumeed maalintii dhaweyd magaalada Ceelbo ee ciidamada BMPF-ta Mariniska ee lagu talagalay inay burcadbadeeda la dagaalamaan ay ku weerareen shacabkii magaalada Ceelbo oo dad dhigaya mudaharaad salmiya ay ku dhaawaceen gabadh dhaawaceedu uu yahay halis haddana dhaqtar ku jirto gabadha waxaan rajaynaynaa in Ilaahay caafimaad siiyo khasaarihii magaalada gaadhayna in Ilaahay magaalada u qodayba ciidanka BMPF waxa gacanta ku haysa dawladda Imaaraadka waxa loogu talagalay in lagu la dagaalamo burcadbadeeda ee looguma talagelin dadka shacabka in loo adeegsado waxaan baaraynaa arinta waxaan ku ugu dirayaa baaq dawladda Imaaraadka Carabta waxaan leenahay dawladda Imaaraadka Carabtu inay hoos u eegto ciidamada ay fangareysay dhaqaalaha ku bixiso waxyaabaha ay ku kacayaan waxay ka qayb qaateen amni daradii xasilooni darada ka socota gobolka Sanaag dad shacab bay ku laayeen arintaas waxaan uga fadhinaa dawladda Imaaraadka Carabta oo ugu horeeyo safiirka dawladda Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaaliya oo ay shirweynahani u gudbin doono qoraal rasmi ah inay ka soo jawaabaan ciidankaas iyo waxa loo idmaday iyo waxa loo talab shaqada socoto waxaan ka xumahay hogaamiye Saciid Deni hadalkii uu maanta warbaahinta mariyay gobolada waqooyi bari ee Soomaaliya waa laba gobol iyo degmo gobolka Sanaag gobolka Sool iyo degmada Buuhoodle 18 gobol ee Soomaaliya ee hore ay ku jiraan dastuurka federaalkiina wuxuu aqoonsan yahay gobolada hore ee Soomaaliya oo kaliya dastuurka federaalku wuxuu dhigayaa inay maamul noqon karaan laba gobol iyo badh iyo wixii ka badan haddii reer Sool iyo reer Sanaag iyo degmada Buuhoodle ay u arkeen maslaxadooda inay ku jirto inay noqdaan gobol madax bannaan iyagoo ka eegaya duruufaha siyaasadeed goboladana waxay qoran yihiin gobollo lagu muransan yahay sababaha keenay ee soo dedejisay waa ogtihiin maamulka la baxay Somaliland wuxuu halkan dheer ugu jiraa sidii uu goboladaas ictiraaf u heli lahaa uu gobolada uu ku helo hogaamiyadani isaga oo ciidan tababar u faray xarada BMPF-ta hadalkiisii taariikhda galay ee kacdoonkan abuuray ee uu sheegay waxay ahayd inuu maamulka la baxay Somaliland kula shaqeynaya rabitaankooda wuxuu yahay maamulka Somaliland rabitaankooda wuxuu yahay inay dadka degan bulshada weyn ee la yiraahdo harti waqooyi kala xishoon ma afkayga inay gumaystaan haystaan degaankooda gacanta ku dhigaan iyaga hoos tagaan wadanka Soomaaliyana ay kala gooyaan oo laba ka dhigaan hogaamiyadani hadduu taa kula shaqeynayo dadkani waa dad Soomaaliyeed waa xudunta isku haynta qaranka Soomaaliyeed qorshayaasha noocaas marka ay yimaadeen dadkani waxay ka dhiidiyeen inaan marnaba taasi shaqeynayn ma soconayso qorshayaashiisa kale waxa kamid ah hogaamiyadani buurta Caalmadow oo khayraadka Soomaaliya meesha ugu muhiimsana inuu isagoo ku marmarsoonaya al-shabaab baa laga xoreynaya inuu ciidan geliyo qabsado 5,000 oo askari oo jifidiisa iyo beeshiisa adejiyo dhulka la yiraahdo
boqol sano kadib reer Sanaag baa dhulka lahaan jiray iyo beesha Maxamuud Hartiyada wadaagtada wax la aqbali kara maaha shirkadii baa u diyaarsan hawl ganacsi iyo barnaamij ganacsi oo dhaqaale oo aan ku jirin maslaxadda ummadda Soomaaliyeed ayuuna hawsha u gelayaa waa sababta keentay dadka deegaanku in ay ku tashadaan in ciidamada SNS Somali National Army ciidanka xoogga dalka Soomaaliya laga hirgeliyo gobolka Sanaag si uu u ilaaliyo khayraadka gobolka ee u dhaxeeya bulshada Soomaaliyeed leedahay waana waajibaadka qaranka in la ilaaliyo hantada ummadda ka dhaxaysa walaalayaal waxa meesha yaal waa siyaasad iyo maslaxad innagu hadda halkan caawa waxaad u fadhideen maslaxadda ummaddiina iyo aayihiina inaad ka tashadaan hogaamiyadeenina wuxuu ordayaa siyaasad 65kii sano ee ay Soomaaliya jirtay beeraha walaalaha ah ee Maxamuud Harti iyo wadaagtooda ee beesha Siciid Harti iyo wadaagtooda ayaa u luga ahayd hogaamiyadani iyo inta la halmaasha in ay Soomaaliya ay jaranjaro ka dhigtaan ay ku fulaan ama kursi ku raadsadaan waxa meesha taala waxa weeye haddii halkan uu ka dhismo dawlad goboleed ay u dhan yihiin beelaha dadkan degaa runtii waxay noqonayaan awood siyaasadeed oo soo biirtay oo ku xisaabtankeeda heer qaran Soomaaliyeed ta laga dagaalamayaa taa weeye dekadii la soo inaga waa xiran tahay waa ogtihiin digreeta madaxweynaha lagu xiray sidaad ogtihiin dhowr iyo 20 sano ka hor waxa laga dagaalamayaa inay dekada laas qoray furanto oo wadada geedoor halka ka soo degto ilaa degmada Buurood la xiriirsanto dadka noloshooda kor u soo kacdo ina sidaa fahamtaan weeye ina idinku isku tashataan weeye ayihiina ka tashataan weeye ina idinku noloshiina aad horumaraysataan weeye ina idinku amnigiina aad ilaashtaan weeye ilaa daraad ilaa shalay waad arkayseen cayayaanka bulshada ee hogaamiyadani u shaqeeya iyo cayayaanka bulshada ee hogaamiye cirra u shaqeeya intuba arintan isku sibay uga hadlayeen oo shirweynaha ummadana leedahay waxaan baarinayeen halka waxaad ka aragtaan labaduba inaan midna ka raali ahayn in dadkan degan laga bilaabo laas qoray ilaa degma Buurood le aan loo ogolayn inay is arkaan oo wada fadhiistaan oo aayahooda ka tashadaan arintaasina way soo dhamaatay way wada fadhiisanayaan wixii ka dhaxeeyay isla eegayaan maslaxadooda ayay si wada jira u qabsanayaan hareeraha waxay isu sameyn doonaan tanaasul dhaqan iyo tanaasul siyaasadeed ba insha Allah bilaa kariim iyadoo la eegayo wax walba laga hormarin doono maslaxadda ummadda tan halkan waa bilow waxa laga yaabaa in dhacdadii ceelbu ka taagnay iyo imaantinkayagii aanu ag bedelashada ka soo sameeyay damala xagarre u nimi in dadku siyaabo kale oo khaldan ay u turjumaan anaga haddaan joognay ceelbu shaqa ay ka socotay ciidamadii BMBF la soo galiyo shacabkii lagu la dagaalamay odayaashii dhaqanka guurtidii iyo waashii dadkii deegaanka aan wada hadalnay waxaan u turnay dadka shacabka ee magaalada degan in aan lagu dhex dagaalamin sidii Boosaaso ka dhacday Garowana ka dhacday dagaalkii uu ka ogay hogaamiyadani labada magaalada dad shacabi ay lagu laayay hantidii lagu burburiyay inaan tii oo kale ka dhicin aan aqli keeno waxaan ku tanaasulnay odayaashii la qaadanay in iyagana magaalada ay ka baxaan oo laga saaro annaguna aan ag bedelasho sameeyno oo damarar xagarre u soo ruqaansano shaqadeena iyo shirweynaha nu qabsano horta sidaas aan halka ku nimi wararka dacaayada ay sheegayaan leeyeen waa carareen hadda ma nacari damala xagarre iyo ceelbu 30 kiiloomitir bay isu jiraan dadka deganina waa isla dadkii waa dad isla reer damala xagarre iyo reer ceelbu iyo reer xingalool
iyo reer Dhahareed iyo reer Buraan iyo reer Barmeed iyo reer UP iyo inta kale magaalooyinkeenu dadkeena oo dhan waa isku mid waa dad isle muddadii laga faashleynayay dhexdooda uu soo dhamaaday hogaamiye Ciro iyo maamulkiisa waxba uma yaalaan halkan hogaamiye Deni iyo siyaasaddiisa guracana halkan waxba uma yaalaan waxa ay hogaamiyaashu labada hogaamiye ay kharibayaan insha Allah markay state kale dhismo waxa laga shaqeyn doonaa nabadiisa iyo sida bulshada Soomaaliyeed oo dhan isku hayn lahaa ma ogtahay in internetka shirkadda Golis ay ku keentay uu yahay internetka ugu xawaaraha sareeya dalka iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay 3 fiber cable kaasoo gabi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu ka go'in internetku shirkadda Golis waxa ay diyaar kula tahay inay ku geliso gurigaaga xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan garaac 181 oo hadda dalbo internetka ha qabtira baahiyahaaga internet adduunkan aad kula xiriirtid mar walba